maalmo ka hor ayaan booqanay hoyga hooyo Maano Sheekh Cabdiwaaxid oo 3 sano ka hor lugta ka jabtay kadib markii ay la rogantay mooto bajaaj ay saarneed. Si aan wax badan uga ogaano xaaladeeda caafimaad iyo mid nololeedba ayaa inoo suura gashay in bulshada aan u soo bandhigno kadibna ay ka soo jawaab celiyaan. Dhalinyaro ka soo jeeda Buur-Xakaba kuna sugan dalka Qatar ayaa maanta soo gaarsiiyay raashin iyo lacag kaash ah oo ay ugu talagaleen in dabka ay ku sii shitaan. Maxamed Cabdulaahi Taynis oo ahaa wakiilka deeqda ayaa ku wareejiyay amaanadii loo soo wakiishay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Niba meelingeyga taboqonay lama bir saddex bir ku hor walaalana maamadan oo naafanta ka anta jiifta iyo booqani maadaama uu kulay faqdoornay barnaamijkuna sheegnay dad walaal oo rooga qadar rooga yaway baahneen ka deeqana hay wakiiladeena أنا بيخدم وراشين كان أنا بس كاش أنا نشانة أنا أي وكيل ذا ما يبملون كشانة وكيل كها ولا يراس وقدر رود أو ولا دي بدن ودك بدن كجيدان يبغى بهدي بدن راشين كاسي قطون ولا لان مع مدان وردين تان ولد كان يعني يبغى بهنا تاجني راشين كان كتاجني نو جرسي نو درسي راشين كهذا ما شاء الله إنشاني بس لان كاش ولوري مامان ما يبقى لي من الله يرى وراء أو رون قدر رون يا كين جبين راشين كان يبقى سوي كين جبين daawadayaal magacaygu waa Xuseen Geesay waxaan ku suganahay hoyga hooyo Maano Sheekh Cabdiwaaxid oo 2 maalin ka hor aan nimid oo aan ka baahinay telefishinka 5 Somali TV xaaladeeda caafimaad iyo sida ay dadka ay ugu soo jawaab celin karaan. Waxaan hadda soo gaarsiinay qayb ka mid ah raashin oo noogu yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Qatar. Bulshada Soomaaliyeed oo lagu yaqaano iscaawinta ayaa laga sugayaa in ay kaalin weyn ka qaataan in hooyadan loo helo daryeel caafimaad. Xuseen Cali Geesay 5 TV Buur-Xakaba.